ururka daryeel autism ee fadhigiisu yahay UK. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين reer daryeel autism adduunka meel walba ka joogtaan khayr iyo barwaaqo iyo oo ayaa idin rajeynaya insha allah. maanta waxaan rabay su-aal waalidiinta inta badan ay weydiiyaan ama aad iyo aad ugu murugaysan inay ku dhibtoodaan oo ah ilmahayga sidee xafaayadda kaga jaraa, ilmahayga ma fahmaya xafaayadda ma ka jari karaa iyo wixii la mid ah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. ها سؤال جوابتي waxa weeyaan ha ilmahaaga xafaayadda waad ka jari kartaa haddii ay physically awoodaan ilmahaaga inay musqusha isticmaalaan ama xamaamka ama toiletka. markaan leeyahay physically awoodaan waa maxay? waxaa jira caruura autism waxyaabo kaleeto u raacsan yihiin ama hadday noqon lahayd CP waxyaabo kaleeto oo physically aanan awoodin toiletka dushiisina ku fadhiistaan caqabado ku ah iyo wixii la mid ah. ama waxaa jirta caruur bed band ah oo sariirta aan kasoo degi karin. marka haddii aysan caruurta kuwaas ahayn wixii kasoo hara waa laga jari karaa xafaayadda, ama ha noqdaan autism ama ha noqdaan ADHD ama ha noqdaan hadduu ilaahay ku roon yahay Down syndrome. haddaba marka sideen haddaan hooyo ahay ilmahayga yar yihiin ama ilmahaygaba ay weyn yihiin, waxaa jira caruur waaweyn oo xafaayaddii aanan laga jarin. waalidka markuusan haysanin maaragtay qofka bini aadankaa sidiisaba markuu safar galayo waa inuu sahay qaataa moogtay. marka haddii aad waxyaabaha qaarkood jirta caruurtaada baahida gaarka inaad kala shaqaysid waa inaad sahaydeedii wadataa. sahaydu waa maxay? waa inaad heshaa informationkeedii iyo ama dadkii kaa caawin lahaa ama habkii aad u mari lahayd. haddii ay tahay hooyo kaleeto kaaga horreysa inay samaysay kuu sheegto, hadday tahay inaad buugka akhrisid, hadday tahay meel inaad kasoo daawatid, waa inaad heshaa habkii aad u mari lahayd. iska samey ma aha, because iska samey haddaad samaysid maalin iyo 2 iyo 3 aad wadaysaa, caqabado fara badan baa kaa hor imaanaya. haddii aadan garanin caqabadaha sidaad kaga gudbi lahayd, danta waxay kugu qasbaysaa inaad xafaayad iskaga xirtid soo maha. marka taas ayaan ka wadaa. haddaba waa maxay step ugu fudud ee shaqeeya? intii aan dad la shaqeynaya, caruur la shaqeynaya, ilmihii ugu weynaa ee aan xafaayad ka jarnay ama aan ka jira xafaayad wuxuu ahaa ilmo jira 24 sano, ilmihii ugu yaraan wuxuu ahaa ilmo jira 3 sano. soo waad arki kartaa iyo intuu dhexayso. marka waad arki kartaa da'da inaynu ku xirnayn da'dooda caruurtaas ay kala duwan tahay. habka ugu fudud waxa weeyaan horta kow maskaxiyan hooyada waa inay diyaar ahaataa. haddii maskaxda waxyaabo fara badan ku furan yihiin ama howlo kale kugu furan yihiin, howlaha kale iska soo dhamee intaan ilmaha la gaarin hooyada waa inay diyaar ahaataa. kow hooyada waa inay ka laalaabataa ama ka xareysataa guriga haddii ay jiraan shayaal ilmaha hadduu ku kaadiyo ama saxaro gaarsiiyo hadhow ay ka xumaan doonto ama u keeni doono niyad jab. xareysa alaabtaas. waa tan labaad. tan saddexaad ilmaha waa inaad diyaarisaa oo ma aha saakaa soo kacay go-aan waxaan gaara xafaayadda inaan ka jiro xafaayaddan ka jaraya ma aha. ugu yaraan week ama 2 week waa in ilmaha usii sheegtaa ood ku tiraahdaa xafaayaddan kaa jarayaa, waqti u qabataa, maalin u sheegtaa, datecaad u sheegtaa, sawiro sii tustaa. haddii aad isticmaali kartid social stories isticmaashid. haddii aad Africa joogtid oo aadan haysanin social stories wax kaa caawiya aad u sheegtid, laakiin adiga aad kuga sheegtid xamaamka geesaa tirada xaggan baad xaajadaada hadda kadib ku gudan doontaa, xafaayaddan way dhammaan doontaa, qof weyn baa noqotay, maalin hebel ayaan xafaayadda kugu dambeysa. waxay ka mid tahay diyaarinta ilmaha la diyaarinayo. maalinta ilmaha soo gaaro waqtigii saacadna waan xiraya saacadna waan ka furaya ma aha. go-aanka markaa gaartid sidaa waa inay ku dhammaataa. waa inaa usoo diyaar garoodaa haddii ilmaha u baahan yihiin kastuumooyin ama dharka hoosta laga xirto fara badan. hadday saraawiil tahay xilliga ugu fiican ee laga jaray inta badan waxa weeyaan xilliga uu qabowga yaryar yahay dadka jooga especially wadamada qabowga. aad ayay u fudud tahay markii waqtiga kuleela uu yahay. so waalidkii ayagaa diyaar garoobay maskaxiyan iyo waqtigooda. 2 caruurta ayaa lasoo diyaariyey. 3 dharkii iyo wixii aad u baahnayd waa soo diyaarsatay. 4 haddii aad helaysid sawiro aad u isticmaashid ilmahaaga inaad communication kula samaysid oo aad tustid inaad trainingkii musqusha aad ku jirtaan. 5 mar haddaad ka goysid habeen iyo maalin labadaba inaad goysaa. soo sariirta habeenka ilmaha ku seexanayo faraashka joodariga waa inaad diyaarisaa oo aad ku gogoshaa wax haddii accident uu dhaco faraashkaas ama joodarigaas aanay dhibaato badan ama howl badan aysan kaa gelaynin. intaa markaa soo samaysid maalinta ugu dambeysa xafaayadda ugu dambeysa ilmaha waad u sheegaysaa. waxaa leedahay waa kan xafaayaddii maanta ugu dambeysa, xashiishkaasaan ku ridnay, qashinkaasaan ku ridnay, biinkaan ku ridnay, way dhammaatay. maanta wixii ka dambeeya qof weyn ayaa tahay, musqushaana ku kaadinaysaa adoo sawirada isticmaalaysa. haddaada sawiro haysanin adiga tus
adiga tag musqusha ku fadhiiso markaaga aad wadatid ku fadhiiso dhibaato ma laha u sheeg in halkaas lagu fadhiisanayo lagu kaadinayo lagu maalmaha u horeeya ku adkaan doontaa waxa kaleeto oo ku caawinaya waxa weeyaan ilmaha inaad geysid xamaamka every half an hour nus saacahiiba mar waxaa kaaga soo baxay special 3 maalmood ugu horeysa dan waxaa ku soo baxay ilmahaaga inuu u baahan yahay xamaamka inuu tago nus saacihii mar 40 daqiiqo mar ama saacadii mar laakiin 3 maalmood ugu horeyso waa barasho adnood baranaysa ilmahaaga nus baranaya qalan iyo warqad qaadanaysa saacad kasta musqusha geysid 9 subaxnimo geeyay muu kaadinin 9kii barkaan kaadiyay muu kaadinin 9kii 45 buu kaadiyay that means every 45 minutes ayuu ilmahaaga u baahan yahay laakiin waqtigu inuu ku qoran yahay oo aad la socotid tan kaleeto loo baahan yahay in la sameeyo waxa weeyaan ilmaha cabitaankii cabi jireen in la kordhiyo haddii ilmahaaga maalintuu cabi jiray 500 ml of cabitaan ah waa inaad kordhisaa cabitaanka because cabitaanka markii la kordhiyo waxaa badanaysa ilmihii jaanis ugu baahdo in uu u baahdo musqusha inuu kala kusoo kaadiyo ilmaha qaarkood waxay qabaan sensory so air freshenerka musqulaha lagu buufinayo waxyaabahan carcarfaya musqulaha lagu dhaqayo kadaa haddii ilmahaaga uu sensory issue ku leeyahay waxyaabaha xamaamka markuu ku jiro ciyaalka qaarkood toiletka way dhibtaa inay ku fadhiistaan because waa qabow so ayna la timaadaa intuuna ku fadhiisan ka hor sidii aad u kululeyn lahayd xamaamka macnaheeda maxaad ku kululeyn kartaa waxaad ku kululeyn kartaa biyo kulul intaad ku shubtid toiletka marka hore inaad ka masaxdid oo toiletkii kulul uu ilmaha ku fadhiisto hadduu qabow yahay ilmahaagana sensory uu qabo kuma fadhiisanay wuuna diidi doonaa biyo cabitaanka kordhi cabitaanku waa inuu bataa saacad half an hour 40 minutes saacad intay tahay baa inaad geysaa haddii ilmahaaga iskuul dhigto macallimiinta iskuulkaaga waa inaad u sii sheegtaa macallimiinta iskuulka carruurtaada waa inaad u sii sheegtaa ku tiraahdaa taariikh hebel maalin hebel ilmahayga waxaan ka jarayaa xafaayadda idinkan waxaan doonayaa inay gala shaqaysiin dharkii hoosta laga xiranayo dhanna waa kuwan sigsaantii saraawiishii kastuumadii wixii oo dhan aad u geysid oo shadada ugu gurtid waa u sheegtid xafaayadda inuuna xiranaynin schedulekaagana aad u sheegto tiraahdaa saacadiiba mar buu galaa 40 minutekiiba mar buu galaa inta badan ilmaha waxaa ku adkaata inay xamaamka ku saxroodaan laakiin kaada inta badan kuma dhahayo waqti yar bay ku qaataa laakiin ilmaha qaarkood waqti aad yar bay ku qaadataa ilmaha qaarkoodna waqti bay ku qaataa laakiin ugu badnaan 12 week inta badan natiijada waa la gaaraa waa haddii loo sameeyo si ku celcelisa oo isku mid ah ilmaha cabitaanka loo badiyo iskuulka iyo guriga isla shaqeeyaan hadduu ilmaha guriga joogo dadka guriga kula jooga u sheegtid inaadan dhin maanta suuqaan tagaya ilmihii xafaayad baan usii xirayaa inaadan dhihin martiba ii timid oo mashquul baan ahay xafaayad baan u xirayaa ama wanis aad bilaawdid inaad xafaayadda ka jirtid qorshahaas waa inaad hirgelisaa maaha maalin inaad xirtid maalin ka joojisid ilmihina confuse buu kugu noqonayaa adigana natiijadii aad rabtay ma gaaraysa marka istaabiyadaas daa raacdid oo haddii lasoo koobo ee tahay waalidkan is diyaariyo ilmihina aad diyaarisid maalintaa ugu dambeysa xafaayadda ilmihii aad u sheegtid schedule aad raacdo every half an hour ilmihii musqusha aad geysid cabitaankii cabi jireen aad badisid tan kaleete ayadana laga maarmaanka muhiimka waxa weeyaan ilmaha markastuu musqusha galo hadduu ku kaadiyo iyo hadduu ku kaadin horta maalmaha hore uu ku fadhiistay gacmihiis kasoo dhaqay in la abaalmariyo lagula hadlo hadal farxad gelinaya ilmaha hadduu hab jecel yahay hab aad siisid high five hadduu jecel yahay high five aad siisid abaalmarin kale haddii ay jirto uu jecel yahay abaalmarintaada aad siisid aad tiraahdo well done wiil wanaagsan baa tahay gabar wanaagsan baa tahay xamaamkaad gashay oh my god qof weyn waad weynaatay maasha allah tabaaraka allah ammaan abaalmarin aad ayay u shaqaysaa انت حدا اسلا سميسان استبيدا سودان راعدان ان شاء الله باذن الله الكريم وتقول لسان حفايدا الماء اناد كجرتان دادي دونان بها نقدان قريب رواقينا عدي رجينيا consistency اي ابال مارين اي تايم تيبل اي عبيتان كله كرديو ان شاء الله باذن الله الكريم حدي اد جوجتد ودان اد هليسي صورنا اد استعماشي نتيجه ادي اد وناكسن ايا كغاري دونتا هدي جيران wax su'aalo ku saabsan toilet trainingka fadlan hoos iigu reeba ana idinka kasoo jawaabi doono qeyr iyo barwaaqo iyo nimcan idinkaga tegay intaas aan kusoo koobayaa because ma doonayo video inuu aad iyo aad u sii dheeraado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu